بسم الله الرحمن الرحيم. taariikhdu markay ahayd 14 bishii 6 2017 maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanay dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid 34 jira ina nadiifo Faarax Cabdi ku dhashay Galgaduud ka tirsan ciidanka badda xooga dalka Soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku eedeeyay dambiga ah dil bareera kadib markii uu xabad ku riday gaari uu waday marxuum Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya ay wajiga kaga dhacday sidaasna uu ku geeriyooday taariikhdu markay ahayd 3 bishii 5 2017 abaaro 7 fiidnimo falkaas oo ka dhacay degmada Waabari gaar ahaan inta u dhaxaysa Hotel Siyaad iyo masjidka Isbaaysiga waxayna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji taariikhdu markay ahayd 19 bishii 6 2017 xukunsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 13 bishii 7 2017 waxayna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay rafcaan laha dil toogasho taariikhdu markay ahayd 29 bishii 7 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bishii 10 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq.